shiinuhu isticmaalay kuwaas si aan isaga farihiisa loogu arkin inuu meesha ku jiro kuwiina waxay adeegsadeen qaar gudaha ah ama ha noqdeen garaado ha noqdeen ama dhaqameed ha noqdeen ama siyaasiyiin ha noqdeen meesha koonfurta Soomaaliya waxay nagaga yimi oo gobolada bari jooga waa argagixiso waxa aynu inagu afkeena ka dhowrayno ayay iyaga oo inooga war badan sheegay Mareykankii wuu tagay gooja cadde nin waliba uu tagay Itoobiya way tagtay ninkii isla cidimo ogow waa la ogi mud bay ku leedahay amni dareena arrimaha dibadda sida ku leedahay waxa weeyaan waxay soo bilaabantay markii aynu heshiiska wada galay innaga iyo Taiwan aynu xiriirka diblomaasiyadeed isku wadaarsanay shiinuhu ka xumaaday oo ka carooday Mareykankuna wuu dhiirin gelinay dabatana maxay noqotay in shiinihii inaga aargoosto isku day toos inoogu soo muuqanin laakiin wuxuu inoo kiraystay calooshooda shaqaystayaal Soomaali ka soo jeeda asal ahaan laakiin sita badakoodu jinsiyadda dawlad kaleeto oo reer galbeed ah oo aynu naga saaxiib nahay marka shiinuhu isticmaalay kuwaas si aan isaga farihiisa loogu arkin inuu meesha ku jiro kuwiina waxay adeegsadeen qaar gudaha ah ama ha noqdeen garaado ha noqdeen ama dhaqameed ha noqdeen ama siyaasiyiin ha noqdeen ama ganacsato ha noqdeen marka dagaalkan waddanka ka soconaya ma aha innaga iyo Soomaaliya ishayna ma aha waxa weeyaan innaga iyo China ishayna runtii waxa weeye China iyo Mareykan yaa ishaya inana waxaan dagaalamayna Mareykan walaal waxaan dagaalamaysaa China waxa weeyaan proxy war baa la yahay waxaan buu wakaala dagaalada dibadda ka soconaya badalkooduna waa noocaas oo kale hadda waxaan leeyahay asayta u fahanno oo xalkeeda soo doono ta kaleeto martii la inagu dilaayo Mareykan iyo Taiwan baa la socotaan kuwa inoo dagaalamaya dagaalkoodana ay yihiin qaar jinsiyadooda sita dowladahan saaxiibka nahay waxa weeyaan wasaaradda arrimaha dibaddu inay ka hawlgasho dadka waxaa wada ee jinsiyadooda sita ee danahooda ku ciyaaraya danaheennaba sida wax uga qaban lahaayeen waxaan u malaynayaa in yar Ingiriiska ka yimid cadaan inaan Soomaaliya ictiraaf ka yeelin waxa qabaa in dowladda xamar ee walaalaheeda laga hawlgalo sida ay ictiraaf noo siin lahaayeen mawsuulna ay baarlamaanka u gelin lahaayeen waxaana jeclaa bal xeerkaa lagu siiyay dhalashada xeerkaa tulsiyada in dib loogu noqdo balaadayo si loo samayn lahaa golayaasha Soomaaliland waxaad moodaa iminka inay saameynayaan dadka dibadda iminka baraha bulshada hadda aad ugu fiirsato dagaal qabyaaladaysan baa ka socda oo aad u xun oo aan dadka gudaha waxa ka saameyn badan dadka dibadaha waxaad moodaa dadka dibadaha hadii la heshiisiin waayo oo la isu tagi waayo oo wax laga qaban waayo dagaalada Soomaaliland gudaheeda iyaga sababaya oo saameyn ku keenaya meel kasta hadda dib u fiirsato waa la qaybsan yahay marka inaynu dib Soomaaliland u gudto oo jaaliyadii dibadda dib loo mideeyo oo nabad la wada ogoliyay Soomaaliland laga dhaliyo way qodobkeen